maanta xafladan aan isugu nimid waxay ka markhaati kacaysaa isbeddelka ballaaran ee dhanka dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee ka jira deegaanka Soomaalida. waxay kaloo ay astaan u tahay halka deegaanka u socdo. hoteelkan waa hoteelkii 74aad ee laga furay deegaanka isbeddelka kadib. 74 hotel baa la furay dhowr iyo 20 ay jijigihii maan filayaa. hoteelka airportka hadda ka socda, hotel kale oo wadadan Ducaale ka socda waa weyn iyaga laftigooda 4 star ku dhawaada. hoteelada oo hadda daba socda jira iyo kuwa kale waa run waxaa loo baahan yahay maalgashi ballaaran oo warshadaha iyo dhan walba. laakiin hoteelada iyo guryuhu waxay ka turjumaan iyaguna kobaca dhaqaalaha. sababta dadkaas warshadaha keenaya iyo shaqaalahaas iyo waxaas oo dhan guryo iyo meel iyo hooy ay galaan u baahnaan safarka badanaya, shaqaalaha badanaya. marka waa astaan muujinaysa in dhaqdhaqaaqa dhaqaaluhu soo kobcayo. dhanka maalgashiga capital ama lacag dhan 44 bilyan ayaa soo biirtay isbeddelka kadib maadaama ganacsiga xor noqday. warshado ilaa iyo 424 ayaa soo kordhay oo isugu jira 57 warshado waaweyn, 93 yaryar iyo 274 warshado oo yaryar. kuwa dhaxal 93 warshadahaas aan hadda ka hadlayno waxay isugu jiraan kuwii granite-ka, kuwa jiingadaha sameeya, kuwa furaashada sameeya, kuwa fara badan oo baahiyaha deegaanka ka jira ee dhanka adeega buuxiye baa jira. mashaariic ugu yaraan 10 bilyan ka badan oo dollar ayaa dhawaan dhowr toddobaad gudahood laga dhex dhigi doona deegaanka Soomaalida oo ay ka mid yihiin 4 warshadood oo ah 4 warshadood dalka Itoobiya kuwa ugu waaweyn oo qaarkood dhanka dhaqaalaha laga heli doono ay ka badan yihiin xitaa biyo xidhanka ayaa la bilaabaya. waxaa ka mid ah mashruuca bacriminta ee Goday fertilizer petrochemical oil iyo 2.5 bilyan lagu samaynayo. waxaa ka mid ah warshada sifaysa batroolka, waxaa ka mid ah warshada gaaska iyo warshado leydka la xidhiidha iyaguna korontada laga dhaliyo isla aaga laga samaynayo. 4 warshadood baa dhagax dhigi doonaa muddo bil gudaheeda. diyaargarowga taas keliya dhanka jidadka waxaa iman doona toddobaadkan gudihiisa tiim hordhaca oo dhammaan jidadka dee wax soo saarkaas ka bixi doono dayactirkoodii iyo korgaadkoodii ka shaqayn doona. marka waxaan dhaqaaluhu sidan hadda aan ka hadlayno si 10 jibaar ama 100 jibaar u kor u kici doono. waxaana laynaga rabaa deganaanshihii iyo wixii suurtagelin lahaa waxaas inuu inoo dhaco inaan la nimaadno. xukuumadduna kaalinteedu way ka ciyaari doontaa. dhanka maalgashigu magaalada Jijjiga maanta isha ay leedahay ma yeelan doonto sanad kadib, waayo inta hadda noo dhamaatay waad ogtihiin inta bilicda magaalada ay ka bedeshay nolosha. laakiin fari kama qodna faan hore bay odhan jireen. haddadan airportka ballaarida ka socota waxaan aaminsanahay wax ka badan in la qaban karo. qorshayaal hadda la qaatay way jiraan waddo 10 kilomitir ah oo tan magaalada dhexdeeda oo kala 6 leen ah oo ilaa airportka ah waa la dhagax dhigay. shaqadii way socotaa. waxaan rajaynaynaa muddo 6 bilood gudahooda ugu yaraan qayb ka mid inay dhammaato oo qorshaha haddaan qaadina. waddada kale ee iyaduna socota ee magaalada isku xidha jidka Sodonka la yidhaahdaa laakiin bypass baa Jijjiga bypasskaasina uu dhisan yahay laakiin qaybtii bilicda iyo leydka iyo qaybtii ku xidh lahayd magaalada ayaa iyaduna muddo ugu yaraan bil ama 2 bilood in lagu dhammaystiro qorshuhu yahay. waxaa deegaanka xariga laga jiri doonaa gaar ahaan Jijjiga agteeda goobta dalxiiska ee Shabeelle oo ay ku baxday lacag 16 bilyan oo bir ka badan. waa goob ballaaran, shaqooyin dhiman way jiraan oo ay ka mid yihiin dhaam meeshaas laga samayn doono. Talyaanigu dhaam sameeyay hore jira, laakiin shaqooyin hadda dhammaadii laftigooda waa meel shirar caalami ah lagu qaban doono. waa meel aroosyada iyo dalxiiska lagu qaban doono. hawo fiican leh. aan aaminsanahay Djibouti, Somaliland, Soomaaliya, Puntland, meel walba oo Kenya, Soomaaliya ay ku nooshahay in la isaga iman doono oo ay noqon doonto meel dadku soo dhaweysa. maalgashiyadan noocana waxaa barbar socda magaalooyinka kale laftigoodu tabartooda ayay iyaguna maalgashi ka jiraan. magaalada Goday oo kale hoteelo badan baa ka socda, infrastructure badan baa laga sameeyey. airportkii baa ka mid ah, jidadkii laamiga ka mid ah 16 kilomitir ilaa 4 kaloo hadda lagu darayaa ka mid ah. magaalada runtii bilicdeedu hadda Jijjiga waxba aan ka aqoonin iyo usoo ekaanaysa marka tagto Qabdaha, Dhagax Buur, Wardheer, Hargeysa, Fiiq. magaalooyinka caasimadaha ah waxaa socda barnaamij in xoogga la saaraa. maxaa xoogga loo saarayaa magaalooyin haddii la yidhaah waxaa loo saarayaa
dadkeenu sidii hadda ka hor development paradigm jiray ahaa in tuulooyin lagu kala qaybsanaado way adkaanaysaa in adeeg bixin dadka la gaarsiiyo boqolaal tuulo in lagu kala firdho oo 100 sanadood noloshooda wax iska bedelaya jirin waxaa ka fiican iyadoo noloshii miyiga sideeda ay tahay iyo xoolo dhaqatadeena iyo waxaan ku tirsanahay haddana in caasimada waaweyn oo adeeg dadku ay ka helayaan caafimaad waxbarasho biyo layd nolol ay ka helayaan in la sameeyo fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir subscribe noo saar channelkan soo follow gare like saar muuqaalkan sii share gare oo la wadaag saaxiibadaada aad iyo aad ayaad mahadsan tahay